قصة عجيبة ريب المجن من عدب أي وحي آية خطركو أباشا الإمام أبو إسحاق المروزي يا قصة عجيبة وري وحكوري أردقس أبو زيد المروزي أخذ عنه أبو بكر القفال الشاشي وعنه الصيدلاني بسند صحيح قصة الشافعية وريان أبو إسحاق المروزي وحوجي نين هانتيلا أيا بغداد أندرس كو أهيد وبدنا أن لاين هل ويل بوبد كلها ويل كدوق أو ما أكو نين حافظ الدجنب لقوته ما ويجي ويلكو وضيقنا ذي ويانا ويل كاسو كايستا مالك الدنباء أنا السعودان اسكو صوب حي ودقي أو السعودة مركز يانس ورئيسنا حاجة السعودة وحول السنة كم حان ربعنا نحجيه ويل كي أنا أنكحيه ومحاد ربطها وحول ujeedada u weyn xajka aan kale waxa kamida ujeedada weyn waxa kamida inaan nimanka reer bari mudaj aan helo maka lagu kala baxo wiilka loo bandhigo qaa'if hidi sooca ma ana dhalay mise waa lay dhuumiyaan ogaado Abu Ishaq al-Marwazi waxa yiri wiilkan aad ka leedahay nimankan qaafada waa niman imtixaan oo dadka way kala saaraan waxaad yeeli wada asturan tahay islaamtaadi wiilka iska hayso oo adigu xaj wiilkan afraa ka qaad ما يبود وحاجرت إن ما كيستاجو هيبني مدرج أنك لبحنو مساسها فرانك قاضي مو حكي ويل كيسي ولا تجي نينك اللي قلت من سنة إلهي أمرك يقوليها حجاج صعود بكجرا رفقات بكجرا ولا ما كلا تجي أيانا أنا أقول دورك أبو حيبول ويلكي يا نينك اللي قلت من سنة يدقيق كلا يركف ربنا جماعة سعودية بلا دحفريسي نين قائف ورهيب المدج الله يالي وحال ويل كان نين كدلي سو صار و فيري حوري ويل كان انت فرد من نمر علين بول كي لغتو ما يكجرا و فيري كي لغتو ما دح فدي حوري نين نمر علين بول ويل كان يا odaygi dhalay weynka banaanka u baxay هي قليل عصب الله كياني ويلك على دح فريسي غير كودن حافظي وحور مدالين كوكل مدالين صدح مركو كعيي يا لو odayga loo qoxay wiilkii meel la saar la yahay ninka qaafka inuu wali taagahay bayanake asaga baa hal soo fuulay oo watay soo gaadisaday oday weyn oo adoon ah oo aabihii u lahaan jiray oo aabihii ka dhaxlay baaritiga ku wada oo ku hogaaminay ninka qaa'ifka ay hidi soocay reebari mudlij ee wiilka dul taagnaa markuu saa ninka u soo baxay irtiga saaraa iyo odoonka weynay waayeelka ku hogaaminayo xura Allahu akbar xura ar-raakib abu hada al-ghulam buri وقائد البعير ابو الراكب بوري بلا بك دعدي حوري الله اكبر بوري ويلك هذا انت اللي وريجنها ابيه وكارتك سو سارن بوري nimanku imtixaan bay baasho ka reebay muddo iska ilaahay siiyo ma cilmi la barta ma waa hibo wuxuu الراكب wuxuu waa abu hada al-ghulam ninka ritiga soo saaran wiilkan aabihi weeyebo hawsha cadaatay lixuur laakiin gaadidka ninka saaran ee soo socday wiilka dhalayna aabihi waa ninka hogaaminaya adoonka weyn ee ritiga wada ayaa ninka ritiga saaran dhalay buu odayga xaajiga ahaa wuxuu intaan suuxay baan dhacay fawaqactu maghshiyan alayhi bala ba ka dhacday sooma muxuu raadinay wiil buu rabay inuu saxadee asagii baa la saxo lagu foofay odayga markuu miirsaday adigu biyo lagu shushubo miirsado kacay xajkiisa dhameystay buu noqday Baghdad buu ku noqday mugu Baghdad ku noqday buu hooyadii dhunta ku dhuxooyay hada run ii sheegin waa la kala baxaya nin qaa'if hooyada sooca ayaa cadeeyay wiilkan aan dhalay Arab way samartay wiilkan aan dhalay laakiin anigu wuxuu yiri odayga adoonka ay hebelay weynaan waan dhaxlay aabay ka dhaxlay baa ku dhalay warka meel saar buu doqdi waxay tii waxba ay diin run baan ku sheegaya aabaha oday waayeela oo qad balaqa meel kibar itiyan buu waabaan isku dhacnay markaan isku dhacnay buu saddex dalaqad bay ugu furay markuu ii furay ayuu ka qoomay hadana furitaanki inuu isoo cishado damcay maxal buu samaystay odaygan weyn ee adoonka
ayuu igu maxlalay habeenaan la bariyay kadib waxaan u maano wuxuu igu maqan yahay yuduqa aabbaha dib ii soo ceshaday oo mar labaad ii guursaday saasaad ku dhalatay saasaad ku idan muxuu noqday waa wiil maxlal ah maxal ku dhashay duqan wiilkiisana nasab buu noqday asaga dhalay si toos ah hawsha waxa kala saaray hal oday reer bani mudlaji ah waxaad marka fahmi kartaa nimankan qoyskan ma aha sayidina umar qaa'if buu ahaa aad hawsha ugu dheeray aan iskaga tagnee qisada khatar weey fa inta daacaya marka DNA bay barataaye waxa weeye hidasooci reer bani mudlaji DNA wax ka khatarsan yahay DNA wax la fiiriyo nafta kaaga baxo indhaha ku cadaadano ma la faaro ku kala lagu celiyo weeye nin halkaa soo socdo ma dhici kartaa wiilkan ninkaas dhalay soo socda ka hogaamin hayana waa aabihi awoodtaas ma waxaad xamili kartaa ma